هذا هوينيدا اعتكاف ما سمين كرtaa waxaan idin xusuusinayaa inaan iloobin ducadii ahayd Allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. كسو دواada youtube channelka Zaki Aadan waxaa mahad u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. Marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta ku xiran youtube channelka ee inta daawanaysa. waa barnaamijkeeni fahamka soonka iyo ilaalintiisa xalqadiisa toddobaad. xalqada waxaa uga hadli doonaa i'tikaaf maadaama aan soo guda galnay bisha barakeysan ee Ramadaan tobankeedii weyn ee ugu dambeeyay. xalqadii ka horeysay waxaan ka soo hadalnay Laylatul Qadri. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo kuwa uu waafajiyo. haddaba marka hore waxaan ku hormaraynaa waa maxay i'tikaaf. in lagu nagaado beedka Ilaahay, ujeedkuna uu yahay cibaadada Ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo gaar noqdo muddo gaar ah. maxaa daliil u ah i'tikaaf؟ فمن الكتاب قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لوضع آيات بوحي كجرا في سورة البقرة. فمن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ومحي حكم كيسا xukunka i'tikaafka waa sunno haddii uusan qofka asaga ka dhigin marka hore nadar. goormo ayuu bilaabanayaa i'tikaafka? waxa uu bilaabanayaa habeenka 21aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. dabcan waxa uu ka bilaabanayaa 10 habeen ee ugu dambeyso bisha barakeysan ee Ramadaan. maxay tahay shuruudda laga rabo qofka i'tikaafka sameynaya? 1 in uu yahay qof muslim ah. 2 in uu yahay qof caqli leh ama miir qaba. 3 in uu niyeysto in i'tikaaf uu sameynayo. 4 in i'tikaafka lagu sameeyo masaajid dhexdiisa waliba jamaaca ay joogto. 5 at-tahaaratu min al-hadath al-akbar in qofka uu daahirka yahay hadathul akbarka xaydkii, nifaaskii iyo wixii soo raacay. hadaba haweeneyda i'tikaaf ma sameyn kartaa? haa, way sameyn kartaa, balse shuruudihii guud ee aan soo sheegnay waxaa u raaci doonta 2 shardi in laga helo. haddii ay tahay qof xaas ah, in idan ama ogolaansho ay ka hesho ninkeeda. shardiga labaad wuxuu yahay in ay fidna ka amaan helayso markii ay sameynayso i'tikaaf. maxaa daliil u noqonaya in haweenka ay sameyn karaan i'tikaafka ama uu u furan yahay? xadiidkii Caaisha radhiyallahu anha waxay tiri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu al-'ashr al-awaakhir min Ramadaan hatta tawaffahu Allah ta'ala. i'takafa azwaajuhu min ba'dihi. meeshaas waxaa ka cad in xaasaska Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay ay i'tikaafi jireen. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu naga yeelo Ramadaan kan iyo Ramadaano kale taba caafimaad iyo nabad in uu noogu dhameeyo naguna gaarsiiyo. waxaan idin xusuusinayaa inaan iloobin ducadii ahayd Allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. halkaas waxay noogu soo dhamaaday xalqadeeni toddobaad. muuqaalka lamida intaa ku kulmi doono. wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.